عشقيقة كلا عين عين دمك ككل عريال يدي لني وين يا عوام. soo dhawaada guys channelka naga daawanaysaan waa channelkiina Sucaad Samaara fadlan hadii aad nagu cusub tahay noo saar subscribe hadii aad hore noola joogtayna soo dhawo like waa muhiim waxay naga caawinaysaa muuqaalkeena dad badan uu gaaro sidoo kale share garee hadii aad ka hesho insha Allah commentiga noogu reeb wixii fikrad ah sidoo kale Instagram-kayga ayaad igu soo diri kartaan wixii fikrad iyo qisooyin iyo la yaab aad haysaan insha Allah hadda muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay qiso ama dhibaato haysato wiil Soomaaliyeed oo dabcan ila soo wadaagay soo ii sheegay waxa la xiriir ayuu dhahay YouTuber waaweyn oo aan la wadaagay dhibaatada ay haysato laakiin waa ay ii soo daay waayeen ayuu dhahay kulli aan waxaan dhahay waa kula shargaree waa la shargareenahan dhahay asxaabteeda wixii talana ayaga ay ka heli doontaa waa qiso aad u xanuun badan ilaa hadda wiilkaas haysato wuxuu ii sheegay in uu jacayl ka bilowday Boorama haddana jacaylkiisa hadda uu isla joogaan laakiin dhibaato ayaa meesha ka dhacday wuxuu ii sheegay jacaylkiisa inuu ka bilowday gabar ay isla dhigan jireen jaamacadda Camuud ee ku taala Boorame kadib ay isla dhameeyeen waxbarashadii gabagabadii waxbarashada horta wuxuu dhahay waxa ahayn saaxiibo caadi ah laakiin gabagabadii waxbarashadeena jaamacadda Camuud ayaa waxa dhacday ayuu dhahay inaa macnaha jacayl u qaado iyadana ay ii qaado sidaas isku fahanay jacaylkeeni kadib waxa isla aadna ayuu dhahay Malaysia oo aan waxbarashadeena inta ka dhinaad ku soo dhameysanay waan soo laabanay waxa isku afgaranay inaan isguursano ani markaas ma shaqeyneen ayuu dhahay soo wax shaqo dhan ma haynin marka waxa la degnay ayuu dhahay hooyadiis soo sheegay familka maadaama uusan wax shaqo markaas haysanin in muddo waxa la noolan ayuu dhahay hooyo soo jacaylkeen uu si kubcay uu si tarmay wax walba igu adkeysanaysa gabadha waxa dhacday uu dhahay inaa waxbarashadeedii maadaama wax soo bartay inaa shaqooyin aan CV-gii ku raadsado marka wuxuu dhahay Hargeysa waxa ka helay uu dhahay shaqo hay'adeed Hargeysa soo aaduu dhahay iyada iyo hooyada iyo familkeega waxa ugu soo tago dhahay Boorama waxa dhacday uu dhahay in hooyaday waxay ahayd qof aad iyo aad u kulul aad iyo aad macnaha kuleelkeeda xataa ana aad dareemi jir laakiin marka ana aan ku sugnaa xagga Boorama ana kala qaran jiray ayuu dhahay oo gabadha dhinaca u soo jiray hooyan dhinac marka ka soo dhaxbaxay meesha waxa ka dhacday dagaal oo hooyada iyo maxaan ku rahdaa iyo xaaskeyga isdagaaleen ana Hargeysa jooga oo dhahay mar walbo la soo waco waxa dhihi jiray adaa qaldan gabadhan ku dhihi jiray hooyo ma qaldano soo hooyo iska dhaaf iyadana way yeeli jirtay uu dhahay markii dambe waxa batay uu dhahay dagaalkii iyo maxaan ku rahdaa inay isxamil waayeen sidoo kale gabdho walaalaheeya la dagaalka soo ku soo biireen uu dhahay waxay la dagaalayeen uu dhahay xaaskeyga kadib waxa dhacday uu dhahay inay soo wacday dhahday aniga waxa rabaa maxaan ku rahdaa in Hargeyso ku noolaado أنا شقينايو إن شاء الله أكو عاونايو مركي أقولوا إن هرجيسا أقولوا نولادو محاكور هذا حتى أنا بحنا كريد جروجا واحد هذا شقه له هيا هايو ده هاي هو واحد هايو ده قبل شقي أنت كهالشيء سو حاسكي أنت سو جورس أكو قنعيه مركي إماتي جوريا دجني وادجني سو شقي حرستي ويه شيء مركي هالشيء كدي بواحد عذيو ده هاي إن iyada ay bixin jirtay biilka guriga maxaa ku rahdaa ijaarka waxaas oo dhan iyada fangareey jirta ana wax biil bixin jir ma lahan oo leesay shaqada u heshay waxa dhacdo dhahay lacagta ani aan markaas ku shaqeynaa ina aruuriyo qaarna familku u daro kadib mid walaalkay wuxuu dhahay ana cid biilaayo soo adiga lacagta iska aruurso ama xaaskaaga iyo ilmahaaga maxaan ku rahdaa wax ugu qabo bas waxa dhacdo dhahay ani biil ma bixin jirin lacagtu aruursan jiray kadib xaaskeygi iyada wax walba bixin jirtay saas waxa noogu dhashay dhahay labada ama laba caruur ah aan oo dhashay dhahay marka ani ilaa iyo markaas waxna ma bixin jirin
kadib waxaa dhacdoo dhahay maadaama lacag badan ay aruurtay inaa aniga gabar kale aa guursado oo gabar kale macnaha caashaqay iyadana waa jeclay xaaskeyga laakiin gabadhan kalena waa ka heloo dhahay maadaama meesha aan ka shaqeeyo isla joognay soo jiidasho badan kadib waa jeclaaday waa caashaqay waa guursaday markaan guursaday waa ka qariyoo dhahay xaaskeyga ma ogeen waxaa ku guursadoo dhahay qodbisiro kadib waxaa dhahay rabooyuu dhahay aan ku shaaciyo marka xaaskeyga ay ogolaato iyadana aa u tago soo qanciyo masartir soo siiyo kadib waa isshaacineynaa laakiin hadda qodbisira isku guursano habeenada kamid anuu hurdaayo wuxuu dhahay waxaa ku riyoodoo dhahay xaaskeygu aada u qeylinayso oo soo maqashay inaa qof qodbisiro ku qabo ila shaqeyso waa isku naxayoo dhahay subaxdii waxaa ku balamiyoo dhahay maxaa ku dhahdaa meel oo aan jawi ku qaadano shaqada ma aadin iyadana waxaa ka codsada inaysan shaqo aadin maqaayada ka wada quraacaneynaa jawi fiican aan qaadaneynaa sheekooyin badanna waa ku haya ayaan dhahay oo dhahay markaa maqaayada iskugu imaanay waxaa u sheegay oo dhahay maxaan ku dhahdaa in aan guursaday xaas kale qodbisirana aan ku qabo iyadana ay ii fasaxdo in aan gabadhaasna aan guri geysto marka ereygaas u sheegay hadal dhan waxaa ugu dambeeyoo dhahay yaah hadal kale ma dhihin oo dhahay hadalaa dhahay oo dhahay hadal maxaa kugu dhac hadal aaday u dhididoo dhahay kadib iska soo baxday oo dhahay anoo meesha fadhiyo guriga iska soo aaday anu waa soo baxay gurigaa soo aaday ma hadlayso habeenkaas ma hadlayso maalintaas ma hadlayso way aamusan tahay laakiin wax walbay qabanaysaa way qabeysanaysaa cunto way cunaysaa laakiin ma hadlayso bes waa isku naxay oo dhahay shiiqa u wacay waxaa dhahay qur-aan hala saaro maxaan ku dhahdaa arrintaasaa jirto qur-aanka waa la saaray ma hadlayso ha ka yaabin inay hadasho kadib dhakhtaraa geeyo dhahay dhowr bilood kadib horta waxay ka harta shaqadii aadi jirtay ani waxaa igu qasbanaatay inaan bixiyo gurigii wixii la cunayo waxa dhan iyada maadaama shaqada ay ka hartay waxaa dhacday oo dhahay inaan dhakhtar geeyo dhakhtar walba aa geeyo wax cudur ma hayo qur-aan walbaa saaray kadib familka oo gabadha u sheegay arrintaas ogaayeen waxay ugu dhaheen gabadheena way masartay soo waxaa laga yaabaa in ay aada iyo aad kaaga qalbi jabtay gabadha kale aa sheegayso fur sidii gabadhi kale qodbisirada ku qabo ku furay oo dhahay oo ku shaaciyay iyadoo maqlaysaa xataa u sheegoo dhahay inaan gabadhaas furay raalin iga noqoto wax walbaa u sameeyey oo dhahay gabadhi ilaa hadda way aamusan tahay 2 caruur ay leedahay waana jeclaha oo dhahay xaaskeyga waayo laakiin up to now way aamusan tahay wax aan u sameeyana waa la ahay wax ay ku hadasho oo aan sameyn waa la ahay xitaa waxaa rabo dhahay inaad dibadda u wado turki dhakhtar dibadda aa geeyo way iga diiday inaad diyaaradda raacdo ama ay raacdo ama dibaddaas isla aadno madax ayay saska leedahay bis waxaysan rabin laakiin hadal ma hadlayso waxay rabtana saasay leedahay oo dhahay macnaha waxay bixinaysaa body language madax bis ah laakiin wax hadala ma kasoo baxaya xataa cilmaheeda markay dhahaan hooyo wax hooya ma dhehayso laakiin wax way siineen way caawineen familkeeda markay telefoonka soo waca ma qabanayso hadaloo dhan waa laga laayahay ani aada u la yaabay mucjiso ila naqatay horta waxaa dhihi lahaa gabadhaas si xuna u naxday sababtoo ah qof dhan oo ay jecleed oo wax walba iyada guriga ay bixinaysay dartiis ay hargeysa u timid wax walba ay sameynaysay wax walba oo dhahan u adkeysanaysay inuu haddana markuu lacagtii aruursaday kadib uu dhaho lacagtaas aruursada xaasaa guursaday qaar wax qalad ay sameyn lahay laakiin gabadhan aamusnaana ilaa hadda ku dhigan marka wuxuu dhahay asxaabtaada iigu sheeg maxaan sameeyaa gabadhaas qaab noocee ayaan uga hadashiyaa soo wuxuu igu dhahay waxaa laga yaabaa asxaabtaada in talo aan ka helo oo ah wax aan iyada kaga hadashiyo horta ilaah hadashin karo bini-aadan ma hadashin karo soo ilaahay aamusiyey ayaa hadashin karo inay hadashan waa laga yaabaa inay ku ciqaabaysana waa laga yaabaa laakiin aan waxaan ku dhihi lahaa ka samaaro ahaan gabadhaas sidaas dhan u aamustay ku
كل إله بقى أدي دكتور والباقيسي عذر مهايو قرآن أصارتي أنا حقول إلى قرآن كوسي ود مدك الأسماء وحيابه جعلين جرتين مركا أشوكاسي جرتين وحيابها سمين جرتين وكل أسماء هديوين وكان نفط أقدك ومعناها تص إنا قلدنات وقلت كنا كسور لابتي وندي إن هذا الشغل جيابا أصحابتي ذنا وكسوجا إن شاء الله مقالك أنت أنا داسو قارتي شقرا هذا قبسه هذا ما سنتين إن شاء الله وحياة بدن وقسويننا وإذا لو ذا يقدونا عدي أباهن إن معناها قسوين كذا إلى ياب كذا أسوق بيو انستغرام كأي لسه حرجتو هذا ما سنتين